بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودها channel كنا فرحية كشين أصحاب تخالق مركل إيه مقال عسب ساكو عن إنه وذا عنجيلا كال إسكارج على شيء كذي ما شاء الله. إيو هي بسقار لا إكشن تساك قرعة دي حاجة كفائديسي وعنو حرجينا يا إنات كيري دونتان إن شاء الله عنجيلا دي ساس إيكسو بحذي هذا قص هذا الدوان قد لقى مشي كين كرجلي عيادة ددن كيدا yaa indhiina idin macalin ah sida ay ku soo baxday canjeelada qaabkan u qasnay iyo waxyaabaha aan ka sameynay dhinaca kale suqaar waa suqaarkeena saako xawaa hilib lo inta u dambeysay geeli arlesi loo daba socdaan ku dhahay loo amaanta la soo qabtay ka faa'iideysi wacan inta xawaa boorash caadiga oo maxaan ku raadaay mishaarida laga sameysto kulay boorash waa taqaani magac kalma qabtaa boorash bakeeriga haafkiisa soo shiidayaa waa ina shiidid bur camal ka dhigtid halka waxa igu jiro 3 koob oo bur ah waxaan ku darayaa bakeeriga haafkiisa oo boorash aan soo shiiday boorashkii markaan ku daro intaas kadib waxaan ku darayaa bakeeriga haafkiisa oo galey ah galeyda waa mid soorta laga sameysto galeyda oo daqiiqda ah kadib waxaan ku darayaa ilaa 4 qaado oo sokor ah kadib waxaan ku darayaa cusbo intaas kadib waxaan ku soo darayaa qaadada haafkeeda oo qamiir ah ama fixiso ama leeba taqabsu u yaqaano intaas kadib waxaan soo qaadanayaa biyo qandac ah biyo kulul oo laakiin aad u kululeen biyo diirana soo qaadanaysaa hadii aad u kulusha waxa way ma soo qamiireyso intaas kadib markaan biyihii ku shubo waxaan ku darayaa hal xabo ukunta hadii ay ku dhibayso ama xasaasiye ku qabtid waa ka dhaafi kartaa kadib waxaan u qaadanayaa mashiinkaas waranka keenaa si fiican ilaa bur maxaan ku iraadaa smooth uu noqdo oo ujeedaan wax kuskus xitaa ma lahan si fiican ayaa mashiinkaas ugu soo qasay mashiimaha kuwa aniga gaday hadii u baahanto ila soo xirir insha Allah 30 daqiiqo bacda afka saaraya 30 daqiiqo kadib waa ku soo laabaneynaa saak waxa rabaa inaan sameeyo suqaar oo hilibka lo'da ah halka waxa noo yaal hilib lo oo 1 kiilo inta waxa noo yaal xabad yaayo oo soo jarjaray karooto 2 xabad digirta cagaaran oo fresh ka ah inta waxa baradho ilaa 3 xabo oo saasidiiska u soo jarjaray inta waa 1 xab basal kan waxa digirta cagaaran oo gasaca inta waa toon iyo kabsar caleen halkan waxa noo yaalo 1 kiilo oo hilib lo ah lo anaga badan ama isticmaalno faantin saaka waxaan dhahay yaa familka loo sameeyaa jirto 1 kiilo hilib lo ah inta waxa noo yaalo xawaaji kan waa huruud xawaaji isku dar ah iyo barbarooniga shiidan intan waxa inoo yaalo shiishid hilibka hadii asan u sameystay suqaarka aad ku cajab gelin doona ma sha Allah wixii dhanba hal mar isku daraysaa hilibkii baradhadii basashii digirta cagaarka ah digirta freeshka ah karootadii toontii kabsar caleenta wixii dhan toontii kabsar caleenta waa ka reebaysaa qudaartii iyo hilibka isku daraysaa intaas kadib saxan soo qaatay saxankii waxaan ku ridaa si idin muuqato toon iyo kabsar caleen kabsartii kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo huruud ah qaadada oo buuxdo oo xawaaji isku dar ah kadib waxaan ku darayaa 1 qaado buuxdo oo maxaan ku iraadaa barbarooniga shiidan kadib waxaan ku darayaa 1 qaado oo shiishid ah intaas kadib waxaan ku soo darayaa saliid aan badnayn wax yar oo saliid ah qiyaasta ku filan kulli adaa ku badan kaadaan ku yareen karo intaas kadib waxaan ku darayaa 1 xabo maraq digaag ah cusba ku darsan kartaa 1 xabo maraq digaag markaan ku soo daro kadib waxaan ku soo miirayaa jeexlin dhanaan ah kadibna waad isku qasaysaa ugu horeen hadii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanaa subscribe inaad taawatid kadibna gambalaalka taawo si muuqaal walba u soo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambalaalka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeya channelkan hore u gal waxyaabo badan ee aad ka faa'iideysaa insha Allah adigoo gurigaaga jooga aad cunooyin kala duwan ayaad ku baran kartaa like-tan hanaga baqeelna muuqaalada u dambeeyo hoos u dhacayna like-ta u badiyo aad ku mahadsantihiin intaas kadib waxaan soo qaatay digsigaas ama sufriyada soo qaatay digsigii markaan ku soo gadiyay hilibkii macal qudaartii kadib waxaan ku soo gadinayaa alaabtan isku qasqasnay xawaajiyadii iyo macal shiishidkii waxa isku qasnay ayaa dusha uga shubeysaa kadibna gacmahaaga soo dhaqay gacmaha inaan la gashid waayo oo wixii dhan isku qastid alaabta aan foornada raba inaan ku kariyo foornada yariista raba inaan ku kariyo adiga hadaa doontid waxa ku sameysan kartaa dabka caadiga ah
hilibka intaad soo karisid markuu kuu karo kadib ayaad saan u habeyn kartaa. hilibkii oo bislaaday micnaha biyaha ku karinaysaa, markuu si fiican kuugu bislaado kadib qudaartii iyo xawaajiyada ku daraysaa, kadibna waa ku karinaysaa. laakiin ani wax biyaha hadda marab inaan ku daro asagoo saan ah, gacmahaaga soo dhaqdaa la galaysaa. waxaa la rabaa xawaajiyada iyo hilibkii qudaarta inay si fiican isku dhex galaan. kadibna bacan afka saaraya, waxaa rabaa inaan foornada yar geliyo insha allah. waa ujeedaan saas markaan usoo qaso wixii dhan. ugu dambeyntii waxaan soo qaadanayaa barbarooni kala nooc ah. barbarooniyahan dusha ka saarayaa, kadibna warqadda aluminiumkan ku daboolayaa, foornadan gelinayaa. dabka kor iyo hoos 200 u geynaysaa. 3 saacadood iyo bar ayuu ku jirayaa. 3 saac iyo bar markay u dhamaato ayaan kasoo saari doonaa foornada. foornadana waa mid yariista ujeedaan. dabka kor iyo hoos 3 saacadood u fiirinaysaa. markay dhamaato waa inay ku celisid. burkiisu usoo qamiiray inta iska daba laalaabmaan ku dhahay biyo kullan ku qasama. biyaha qandaca yeelaa iyo mashiinta aan ku shiiday saasuu usoo qamiiray asaga dhan. si fiican u sii qasay. hadda waa diyaar. waxaan rabaa inaan kariyo 30 daqiiqo daboolaysaa. markuu soo qamiiran mashiinka ku celinaysaa mar labaad. si fiican u shiidaysaa ama waa qaraacaysaa dhimalo. si fiican u qasaysaa. birta markay noo kululaatay, bismillaahi raxmaani raxiim, xabadii koowaad aan kusoo dhajinayaa. daboolkeeda dhab ku sii. markaad daboolshid waxaa canjeelada quruxay kusoo baxaysaa. ayada dhan indhe yeelataan ku lagama sheekeyn karo. intaas kadib waxaan sugaynaa intay ka gaduudanayso. waa ujeedaan maasha allah. xabadii labaadna sidoo kaleeto canjeelada dhan saan ayaan kusoo dhameynayaa insha allah. si ay u qurux badan tahay waa ujeedaan. sidaa u qasaa haddii u qasatid aaday ku cajab gelin doontaa. canjeelada sideeda waxaa waaye qasitaan. haddii si fiican u qastid ama aad u garaacdid yaa kaal iska argay kusoo baxaysaa. asxaabta ugu cusub qalbi furan iyo waliba niyad saafi ah, soo dhawaada channelka hore u gala. waxyaabo badan ayaa ka faa'iideysaan. subscribe-ka cusub dhammaantiin waa mahadsantihiin. sida mar walba ay garab taagan tihiin. koobantiyadiina, dhiirigelintiina dhammaan idinkaga mahad celinaya. canjeeladii waa soo dhameynay. sheekadeedii soo dhamaatay. markaad rabtid inaad hilibka aad ku karisid foornada subaxdii salaad subax markii la tukadaa foornada la sii geliyaa. ma fahanteen? waayo 3 saacadood iyo bar ayuu ku jirayaa. subaxdii markii 2 saac ama 3 saac hadii aad hilibkan gelinaa ama kaas foornada xilliga qadada unbuu diyaar noqonaa. ma fahanteen? 5 subaxnimo la iska kariyaa. hilibka geela ama hilibka lo'da, hilibka artada ka dhigan kartaa. canjeeladu waa ujeedaan maasha allah. indiina idin macalin ah sidee ku soo baxday. yaa intee ka baxdaa la ma fahanteen? canjeelada intee ka baxday. jaani cirib meel qabataa la waa ku dhahay. yaa la kala dafaa ku dhahay. maasha allah tabaarakallah. sidaas quruxda badan ayay kusoo baxday canjeeladii. ugu dambeyntii sheekadeeda soo dhamaatay. dhinaca kaleeto hilibkan kasoo saaray foornada 3 saacadood iyo bar. yaa wax biyana laguma darin. asaa maxaan ku iradaa biyo keenaya. yaanyadii waxyaabo qudaarta ku jirsabaha waa walaaqaysaa. hilibkii nafsiduu kusoo baxay maasha allah. ujeedaan yaa hilib lo aan ku iraado saas gacanta u kala jarjaraysid si fiican ayuu u bislaaday. lagama sheekeyn karo dhadhankiisa, caraftiisa. indiina idin macalina adigoo wax biyo ku daran. foornooyinkaas yaryarna insha allah mar dhow imaanaya, laakiin kuwa ka yar waaweyn yaalo. suqaarkiisaas ayuu kusoo baxay. canjeelada sidoo kaleeto quraacdan miis kusoo diyaarsanaya. dhammaantiina waxaa idinka codsanayaa muuqaalka inaad like ii saartaan ood sii share garaysaan. 1 like inaana gaarsiisaan ayaan rajeynaa insha allah. waxaan idinkaga tegayaa kheyr iyo caafimaad. please like and share. asalaam.